62 sano ayaa laga joogaa markii uu dalkeennu xorriyadda ka qaatay gumaystihii Talyaaniga isla markaasna ay isku biireen labada gobol halkan waa wadada leeg ee u dhaxaysa magaalada Minneapolis ee dhex martaa wadadan jaaliyadda Soomaaliyeed ayaa maanta u dabaaldegaya sanad guuradii ay gumaystaha ka xoroobeen waxaa ka soo qayb galay xafladda loogu dabaaldegay sanad guurada danjiraha Soomaaliya u fadhiya magaalada Washington ee magaalada madaxda dalka Mareykanka danjira Ali Sharif ayaa waxaan weydiinaynaa bal sida uu dadka Soomaaliyeed uu kala soo qayb galay damaashaadka maalmaha xorriyadda iyo dareenkiisa bismillaahir rahmaanir rahiim Cabdi Xakiin waa mahadsan tahay waxa weeyaan yaani waxa aan ka soo qayb galkan iyo waxa aan indhahayga ku arkay waxa weeyaan shucuur aad u cajiib ah oo ay muujinayso magaaladan iyo dadka ku nool iyo sida ay ula nool yihiin dhaqankoodii Soomaalinimadii maaha kaliya inay u dabaaldegayaan xornimadii maalintii midowgii wixii oo dhan laakiin waxa ka muuqata dhaqankii Soomaaliyeed oo sidiisii ah oo dharkii muxuu ahaayay oo astaamihii calamka yaani waxaad marmarka qaarkood inaan maartay magaalo Soomaaliyeed joogun baan u maleeyaa marka runtii waan tahaniyadeynayaa waana safiiradii dhaqanka weeye muxuu ahaayay oo annaga maxay ahayd intaan qabanayno mid la mid oo ka weyn muxuu ahay halkan ka wada waxaan u rajaynayaa waan ku bogaadinaynaa hawsha aad ku qiimaha badan ee ay wadaan يعني dadka Soomaaliyeed halkan ku nool dalkeena sida la soconaba horumar buu ka gaaray dawladnimadaba halkaana waxa ku nool shacab Soomaaliyeed oo u baahan inay dalkii dib wax ugu soo kordhiyaan maxay tahay fariinta aad u diraysaa fariinta aan u dirayo waxa weeye waxa jirtay bari dadka halkan yimid ama meelaha dibadaha jooga qaraabadoodii ay u diri jireen wax ay ku noolaadaan maanta waxa weeyaan waxa wadankii waxa loo gudbay xaalad ay dadka halkan jooga aqoontoodii ay wadankii ku celiyaan maalgashi ay ku sameeyaan wadankii muxuu ahaay hantidoodii ay geeyaan ku maalgashtaan si loo abuuro dadkii wadankii joogay nolol loogu abuuro shaqo loogu abuuro sida hadda aragtid abaaro xun baa wadankii ka dhacaya oo aad yaani dadkii aad u dhibaateynaya abaarahana waxa keenaya intooda badan inuu roobkii soo daahay kaliya maaha laakiin maalgelin la'aan wadankii muxuu ahaay ay ka jirta marka waxaan fariintaydu waxa weeye dadkan halkan jooga xooggiina aqoontiina iyo maalkiiniba isku daya inaad wadankii kula noqotaan oo geysaan waa gartay sidaan la soconaba dalkeena dhawaan isbedel baa ka dhacay maxay tahay fariinta ugu wada shacabka Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed waxaan u wadaa waxa weeyaan sida halkanba waxaan nasiib u yeelanay in mar walba 4 sanaba aan doorasho dadkeena galaan dadkana matalana ay soo doortaan qof madaxweynaha la doortay ra'iisul wasaare magacaabay dawladdii intii dhimanay inay ma soo dhamaystiranto ayaan rajaynaynaa mar dhow marka dadka halkan jooga waxa weeyaan inay af iyo adinba ay dawladda ku taageeraan inay midoobaan inay iska daayaan qaybsanaanta haddii markii campaign-ka doorashada lagu jiray dadku fakradooda ay kala doonayd hadda hal dawlad baan haysanaa dawladda waa inaan ku daba safarno weey ugu dambeyntii shacabka Soomaaliyeed ee ka daawanaya warbaahinta qaranka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu hambaliyaynayaa muxuu ahay 62 guurada maalintii ma aragtay midowgii iyo xorriyaddii muxuu ahay wadankeenni waxaan leeyahay xorriyaddan helitaankeeda naf iyo maal baa loo soo huray haddana challenges badan iyo culaysyo badan baa soo fuulay wadankeenni inay dadku waxaan leeyahay war midnimadiina xoojiya markii aad mid tihiin ayaad waxa weeyaan karaamo iyo sharaf leedihiin markii aad mid tihiin baad wadankiina wax u qaban kartaan marka aad mid tihiin ayaa muxuu ahaay ummadaha kalena ay idin ixtiraamayaan marka dardaarankayga waxa weeye midnimo iyo wadajir iyo walaalnimo aad u mahadsantahay kaas wuxuu ahaa danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka isla markaana safiirka Soomaaliya u fadhiya safaaradda aan ku leenahay magaalada Washington ee magaalada madaxda dalka Mareykanka aad u mahadsantahay Pastor